Dagaalka ugu adag ee noloshaada ma ahan dadka, mana ahan lacag la'aan, mana ahan dhibaatooyinka ku haysta. Waa dagaalka aad kula jirto naftaada. Sababtoo ah mararka qaar qofka ugu badan ee ku burburinaya waa isla adiga, waa naftaada. Dad badan waxay u maleynayaan in cadowgooda ugu weyn uu yahay dadka, bulshada, ama duruufaha ku hareeraysan. Laakiin runta adag waxay tahay, naftaada ayaa kuu noqon karta cadowga ugu weyn. Naftaada ayaa kuu sheegta inaad wax walba dib u dhigto. Naftaada ayaa kuu sheegta inaad daalan tahay. Naftaada ayaa kuu sheegta inay dadka kale kaa fiican yihiin. Mar walba naftaada ayaa dib kuu dhigaysa oo kula jirta. Si tartiib ah waxay kuu dishaa, kalsoonida ayay kaa dishaa, mustaqbalkaaga ayay lumisaa, disbiliinka iyo nidaamka aad leedahay ayay dib u burburisaa. Raaxada badan, nafta bini'aadamka waxay jeceshahay raaxo. Waxay rabtaa hurdo badan, waxay rabtaa entertainment badan, waxay rabtaa in mobilka ay iska isticmaasho iyo inay shaqo yar qabato. Laakiin inaad kor u kacdo oo growth aad sameydo wuxuu ku yimaadaa marka aad sameyso waxyaabaha adag. Maalinta aad doorato inaad shaqayso adigoo daal, ama aad doorato maalinta aadan rabin inaad wax barato, waa maalinta aad ka adkaanayso naftaada. Dad badan waxay ku nool yihiin nolol aamin ah, comfort zone, laakiin comfortiga badan wuxuu dilaa potentialka qofka. Ha ku kalsoonaan inaad ku jirto xerada ariga oo naftaada ay kuu sheegto inaad aamin ku jirtid oo aadan wax isbeddelah aadan samayn. Naftaada ayaa mararka qaar kaa buuxisa cabsi, shaki iyo fikir badan. Waxaad rabtaa inaad bilowdo wax cusub, laakiin maskaxdaadu waxay ku leedahay ka waran haddii aad fashilato. Waxaad rabtaa inaad isbeddesho, laakiin codka gudahaaga ayaa leh adiga ma awoodid. Dhibaatada ugu weyn, dad badan waxay aaminsan yihiin codka, laakiin fikir kasta oo maskaxdaada ku yimaada ma aha run. Caadooyinka xun ma burburiyaan noloshaada hal maalin gudaheed, waxay si tartiib ah kuu dilaan maalin kasta, waqti kasta. Enerjigaaga ayay cunaan, focuskaaga ayay qaataan, kadibna waxaad la yaabaysaa maxaa noloshayda u istaagtay. Runta ayaa ah, waxyaabaha aad maalin kasta samayso ayaa noqon kara qofka aad tahay. Haddii aad rabto nolol cusub, waa inaad dhistaa caadooyin beddel weyn aad u samey. Dad badan waxay sugayaan dhiirigelin, laakiin dhiirigelintu waa dareenkuna wuu isbeddelaa. Disbiliinka waa waxa kaa dhigaya inaad sii wado xitaa marka aadan rabin. Runta adag laguma dhiso maalmaha fudud, waxaa lagu dhisaa maalmaha adag, daalka iyo dagaalka gudaha. Maalinta aad rabto inaad xakameyso naftaada, maalinta aad barato inaad xakameyso naftaada, wax badan ayaa noloshaada iska beddeli doona. Mararka qaar qofku wuxuu isku dayaa inuu keligiis isbeddelo, laakiin qalbiga bini'aadamka wuxuu u baahan yahay Allah subxaanahu wa tacaala. Marka aad salaada ilaaliso, qur'aanka aad akhrido, aad duceysato, waxaad helaysaa xoog gudaha ah. Sababtoo ah dagaalka nafta kaliga kama adkaan kartid. Allah subxaanahu wa tacaala u noqo, u toobadkeen, ku xirnow markasta. Kaligaa isbeddeli kari maydid. Waxaad u baahan tahay Allah subxaanahu wa tacaala inaad mar walba weydiisatid inuu kugu kaalmeeyo isbeddelka, inuu kugu kaalmeeyo joogteynta, inuu kugu kaalmeeyo inaad caadooyin wanaagsan samaysatid, inuu kugu kaalmeeyo inaad caadooyinka xun ka tagtid. Qofka ugu weyn ee beddeli kara noloshaada waa adiga, iyo qofka ugu weyn ee burburin kara sidoo kale waa isla adiga. Marka xakamee naftaada, ilaali waqtigaaga, ka fogow caadooyinka xun, u dhowow Allah subxaanahu wa tacaala markas. Sababtoo ah maalinta aad ka adkaato naftaada waa maalinta noloshaada isbeddelayso. Naftaada xakamee maanta, ka hor inta aysan iyadu ku xakameyn. Dhammaanteen waxaan u baahanahay isbeddel. Waxaan raadinaynaa inaan nafteena horumarino, waxaan raadinaynaa isbeddel. Waxaan jecelnahay inaan meesha maanta aad taagannahay ka gudubno oo aan u gudubno heer sare. Laakiin inta ay nafteena dagaalka ay nagula jirto, waa inta aanan weligeen guuleysan karin. Waxaan u baahanahay inaan nafteena iyo annaga isla wada shaqeyno si mustaqbalkeena u wada qurux badnaado. Caadooyinka xunna waa waxyaalaha mar walba naga hor imaanayo, nafteenana naga hor keenayo. Haddaynu caadooyin wanaagsan aan u dhisno nafteena, waxaa suurtagal ah in nafteena aan ka adkaano ayna noqoto garabkeena. Waxaan idinkaga tagayaa muuqaalka xiga insha Allah. Muuqaalka like saar.